dhammaan dadkii waxay ku jireen silsilado waxayna bilaabeen inay jebiyaan laakiin hal nin silsiladiisii way dilaacday wuuna cararay markii uu ordayay way dileen waxayna bilaabeen inay ninkaas oo dhintay dib u soo jiidaan dhammaan kuwa jiidayay waxay ahaayeen shayaadiin kuwaas oo dadkaas halkan ku xidhay dadkii waxay hubkoodii dhulka ku aaseen haddana weli waa la jiidayay lama filaan ah nin hub kor u qaaday saqafka sare ayuu ku booday wuuna jebiyey qoraxda ayaa gudaha soo dhacday shayaadiintii oo dhan way gubteen sababtoo ah iftiinka qoraxda ma adkaysan karin dadkii waxay si degdeg ah u bilaabeen inay silsiladahooda jebiyaan si ay u baxsadaan muddo yar kadib shayaadiintii way baabayeen laakiin halkaas waxaa ka soo baxay yeybaan oo aad u halis badan ninkii markuu yeesha arkay wuu argagaxay yeeshu qoraxda kama cabsanayn gabar ayaa waran qabatay waxayna ku soo oroday yeesha laakiin yeeshii way weerartay wayna dishay kadib yeeshii waxay bilowday inay dadkii si tartiib ah u gasho oo u dilo mid markaas ayaa nin silsilad ka jiiday yeeshii waxayna yeeshii u jeesatay isaga silsilado bir ah jiidaan ninkii markiiba cirka ayaa loo qaaday ninku si dhaqso ah ayuu silsilada uga duubay xididada geedka ninkuna si degdeg ah hawada ayaa loo qaaday kadibna wuxuu si degdeg ah u dhacay dhulka si lama filaan ah wuxuu muday midi qoorta shaydaanka ka mid ah wuxuuna isla markiiba dhulka ku dhacay wuu dhintay laakiin isla waqtigaas yeeshii baan waxay ka xoratay silsiladii waxayna si toos ah ugu soo weerartay ninkii